حريتنا ندبلدقينا دورك حريتنا ندبلدقينا دورك حريتنا ندبلدقينا ندبلدقينا calankeena doogaale dusha sare ka muuqda anu dabaaldegayna isku duubnideeniyo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي قيمها بدن يوتيوب نقدر وانا سنة تيم بوجو ما أنت سيده هرتي نقوم مقارنة ونيو فيديو أنت فيديو وكذا قلنا هرتا ولا يقرب كتير أنا كوسو دوينا كوي الله هدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمانتين انت يوتيوب كينو كحرن يوتيوب channel كداوني سينا وتيم بوجوز ما انت هرت واحد قرح دنو استاجنا معناها وحاوي إن برنامج كان يدين ونا وحاوي بلدقة ودن كينا مش معلي جري ودن كينا وقت وحرية دقاتي ووضع مركي كل من كفر يوغوي مركا ودن كينا ولو أقوم ودن نما كود لوليو markii inta barnaamijka sidii guusgalin walaalkan Jaabir aan ku wareejinaa hal ila wuxuu dhahay xabtiga qaaliga team bojo dhamaan ku salaamantiin meel bad dunida ay ka joogtiin sida ujeedeen iyo waa ka aragtiin kulankeena asxaabteena iyo calankeena waxa waaye barnaamij farxadeed oo ah maadaama wadankeena xuriyadiisa maalinta xuriyada ay qaatay maanta ay tahay ina u dabaaldegna halkan u taagnay maadaama aan la soo daahnay insha Allah waxa waaye wali waa lagu sii jiraa inkastoo wax yar dib dhaca soo dhacnay waqtiyada oo cakiran awgeed waxaa rabaa qof walba oo hadda meeshan taagan insha Allah wuxuu idin soo jeedin doonaa wax yar oo adii murti ah oo wadankeena ku saabsan aan u taagana inaan halkan ka soo wada jeedino oo farxadda walaalaheen aan la qaadano waxa inoo bilaawi doono walaalkeen dhankaas gacanta bidixda jiro ee dalmar aan oo bilaawi doono walaalku soo dhawo وكذا ولكن جابر نو شيء معناها ماشي waxa ku wada maanta waxa macnaheedu hadal murtile waaye macnaha oo qarankeena qusay iyo dadka halgamayaasha u soo halgamay wadankeena iyo inta ku soo nafwaysay Allah u naxariisto iyo inta hadda si garbayso bisa wadanka si muuqato marka waxaan idin wadnaa macnaha hadal yar oo murtile oo ku saabsan dalkeena iyo xuriyadiisa maalinta qiimaha badan ee kooda luuliyo oo maanta oo kala marka inkastoo hadda aan kulli afka aan macnaha ka soo tirin karin waxa haysta soo jeedin telefoon haysta macnaha wixii aagfana macnaha telefoonka la kasi fiirsanina haddaba maanta waxaan dib u xusuusan doonaa raggii ururka ka dambeeyay magaca Soomaaliyeed oo hata macnaha maanta taagan iyo halku marayo ha noqoto raggii diiday dulmiga iyo dalka inuu kala tago maanta oo ah kooda luuliyo waxaan dib u xuseynaa inta ku shahiiday in la ilaaliyo magaca dalka iyo dadka iyo diinta iyo midnimada qaran saawada ognahaybo wadankeena juhdi badan ayaa soo galay macnaha heer wuxuu soo maray rafaad iyo burbur haddana kabkii waan ku soo qabsanay macnaha burburkii marka wallahi waa wax zaid aan u faraxsanahay waaye haddana waxaan ku wareejinayaa walaalkayga Jaabir koob iyo laba asagana hal wuxuu dhigi doono anina halka waxa ka soo jeedinayaa wax yar oo asina sidii walaalkii u soo jeediyay amal ayaa diyaar u hayna halkan ka soo jeediyo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa soo ku soo celiyay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa halgamayga ugu horeeyay ee la dagaalgalay guumaystayaasha wuxuu u noolaa muddadii u dhaxaysay 1856 ilaa 1921 wuxuu ahaa hogaamiyihii darwiishta la dagaalamay guumaystayaashii Ingiriiska ee Talyaaniga iyo Xabashida isagoo kula dagaalamay dhulka lagu magacaabo dhulka lagu magac daray Somaliland Nugaal iyo Taleex waxa intaasna maxna ku soo gabagabeynaya ani intii riista murtida awgatay ayaa halka ku soo gabagabeynaya waxa ku soo dhaweynaa walaalkii Kaado asxaabtay oo ku maasin anoo hadal murtida leeyahay wada marka muddo 20 sano ah ayuu socday dagaalka daraawiishta iyo u dhaxeeyay guumeystaha
afartan goobood ay ku kulmeen ciidamada daraawiishta 41 goobood ay ku kulmeen ciidamada daraawiishta iyo kuwa Ingiriiska kuwii ugu waaweynaa oo dagaalamo xun ku dhex dhaceen maxaa ka mid ah Afbakayle Faraadiidin Cagarweyne Daratoole Jidbaale igaraalaada magacaas xun u akhriyay iyo Dulmadoobe dadka hadda daawana waxa leeyahay magacyadna soo tiraysan inuu cusubina Afbakayle waligeed meel la aniga raali ahaan anta qisooyinka marka Soomaaliya daba gasho waa ku dhex arkay magacyada la yaab leh marka kuwaas ay kamid yihiin marka magaalooyinka hadda aan soo tirnay ku dhamaan ilaa maadiis hadda maxaa haysta Soomaaliya degan marka waqtigaas iyada Ingiriiska waqti aan midoonay laakiin Ingiriiska iyo gumeysteen ka kacinay alxamdulillah haddana kooda luulis hadarsan awood dabaaldegayna magaalooyinkaas loo kiciyay iyo dadka u soo halgameen nafta uga baxday maxaa dheenay hambalyo hambalyadan horta ma soo koobi karno maanta una haddii hambalyo aan dhaano waa ogtihiin dalkeena macnaha hadda meeshuu maraayo iyo meeshuu kasoo tegay والله waxaan leenahay waa macnaha kaafi kala dheeri waaye marka waxaan leenahay insha Allah tan tu kasi qurux badanna insha Allah waa u rajeynaa insha Allah wanaagsan كوزلولي هذا وحير وان خلافنا كونفرت وقوي سومالان سوماليا وحير حرقود حيسا الى مع كبرينا مع الى كبرينا انه مدوني سي وقتي ورا مدوني ان هذا ارغنا انه ان شاء الله هل ما دبالدقنا قروح بدن ان شاء الله والله Soomaaliya lilaa asxaabtii qaaliga dhamaan ani waxa ku darsanayaa farxadda maadaama aan la soo daahnay waxa waaye farxadda ma dhamaato Soomaaliya waa Soomaaliya dalkeena barnaamijkeena intaas ku soo gabagabeynaa aniga ahaan xaqiiqa asxaabtii qaaliga barnaamij waa sida hore nagu sheegeen asxaabteen hambalyo ma dhamaato waqti walba saacad walba maxaa naga Soomaaliya maxay naga mudantaa inaan u hambalyeeno oo dhiigeen u horo naftan u horo calankeena mar walba u tagno su'aalo calankeena waan ku faanaa meel kasta uu joogo maxaa leen ha noolaado والله sidoo kale anna wax badan ma sii dhaayo inkastoo hada barnaamijka soo gabagabeynayno waxaan leenahay inta ku xun wadankeena insha Allah iyadoo ay jeclaan doontaa jaceelku Ilaahay dhimala Ilaahay jeclaysiyo inta waxa ku soo gabagabeynaa barnaamijka hadii wax aan qaladnay sheedaanay ka aatay hadii waxa saxnana xaq Ilaahay ka aatay hadii oo inta barnaamijka aan caawiday kamirmanka ilaa hada أكرم بوجو نوين قربك إلى قلو سكستو يا تو كم سنتي داو شذا مقالك نادا وتن مقالك إذا كل منو سياسي